وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد درسيني ودرسيني لبات كنا صابسنا كتاب كأني لما عبحي المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده للعلامة الداعية عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله. waxaan ka bilaabaynaa safxada 11 kitaabaan haysanaa kulligeen المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية xal ayaan soo tilmaanay waan soo dulmaraya باذن الله تبارك وتعالى وعقيدة صحيحة ee ku aadan keliyeynta rabbinimada in ilaahay loo keliyeeyo tawxiid waa keliyeyn الربوبية توحيدka loo yaqaano tawxiid الربوبية oo ilaahay loo gooni yeelo oo aan cid kale ilaahay lala wadaajinin keliyeyn baa la yidhaahdaa ilaahay in loo keliyeeyo tabaaraka wa tacaala الربوبية markaanu leenahay qaacidada koobaad ama tacriifka qabsada waxaa la yidhahdaa tawxiidu afcaali illaah allah tabaaraka wa tacaala wixii fal ah ama ficila oo ka soo fula tawxiidka ka hadlaya yaa culummadu waxay u yaqaanaan tawxiid rububiya. tawxiid rububiya wuxuu ku wareegeysanayaa inta badan macaani shan ah kitaabkaa noo keeni doona laakiin haddaan sii sheego الربوبية oo laga wado bimacnaa المالك waa allaha boqorka ahee koonkan iska leh الربوبية بمعنى الرزاق waa midka wax arsuqa caafimaadka bixiya awlaada bixiya ee wax walba asaga ayaa bixiya tabaaraka wa tacaala. macaanida الربوبية waxaa ka mida المدبر waa allaha wax maamula qabowga kulaylka madowga yani iftiinka roobka abaarta. الربوبية oo bimacna الkhaaliq ah allah asaga ayaa wax abuura keligii. الربوبية oo bimacna الmurabbi asaga ayaa wax barbaariya. shan macaani baan hadda sheegnay oo tawxiidkan soo gudagelaya soo hoosgelaya tacriifkiisana waxaan nidhi waa tawxiidu afcaali illaahi in loo keli yeelo goonina looga dhigo falka ilaahay afcaasha ilaahay khalqiga iyo abuurka cidaan asaga ahayn wax ma abuurto. الرازق cidaan asaga ahayn wax ma bixiso. المالك cidaan asaga ahayn wax ma maamusho. المدبر cidaan asaga ahayn wax ma maamusho. المربي cid aan asaga ahayna wax ma barbaariso. laba qodob baan sheegnay tacriifkiisa iyo macaanida. waxaa kaloon tilmaanay xalay oon ku celinaya biidn illahi tabaaraka wa tacaala tawxiidkani waa tawxiid ka dhexeeya gaal iyo muslimba. maxaa yeelay ficilka ilaahay iyo afcaasha ilaahay dee cid walbay ku dhacaysaa. roobka imaanaya qof walba abuurka gaal iyo muslimba waa la abuuraa. geeriday dhimashada gaal iyo muslimba ajal bay leeyihiin. arsaaqada cid alla ciduu doono ilaahay arsuqaa. qof baa hani laga dhigaya gaal baa hani laga dhigi karaa gaal baa faqiir laga dhigi karaa soo maha. muslim mu'mina baa hani laga dhigi karaa muslim mu'mina faqiir laga dhigi karaa. allah jala wacala waa facaalun lima yuriid. ilaah wuxuu doonuu sameeyaa laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun. allah wuxuu sameeya isaga lama weydiiyo maxkamada rafcaan laga qaata male. maxaa yeelay walaa yakhaafu cuqbaaha ilaahay wuxuu samaynayo ciribtiisa wixii ka imaan doona iyo natiijada ka imaan doonta asagu kama baqayo. waa xakiim oo shay walba waxa ku haboon iyo meesha ku haboon iyo goorta ku haboon ayuu dhigaa. tawxiidka waxaa soo gudagelayaanu nidhi wuxuu alle jecel yahay iyo wuxuusan alle uusan jeclaynba way soo gudagelayaan. cibaarada haddaan isticmaalo bimacnaa rasuulullahi ilaahay baa abuuray muxamed sala allahu alay wasalam. jibriil allah ayaa abuuray subxaanahu jala wacala wakadalika ibliis iyo shayطaan iyo jaan iyo jini iyo cifriid na ilaahay baa abuuray tabaaraka wa tacaala. kuwa shar bay ka samaysan yihiin kuwana khayr maxdi a bay ka samaysan yihiin.
ilaahay muxuu abuuray xikmad asagu uu og yahay aragtideennu waa shar alla xaggiisana waa xikmad xalay waan ku dheeraanay waa qodob asagana muhiima tawxiidkani waxaa soo gudagelaya qofka tawxiidkan qiraay macnaheedu inuu muslim yahay kama dhalanayso waayo gaaladu waxay qirsan yihiin tawxiidkan kulli waa wada ogna yaa abuuray koonkan haddii la dhaho hadda gaaladan aan la joogno maxay dhahayaan so allah ma dhahayaan wahaakada kitaabka asagaa kuu keenaya khulaasada waanu samaynay waan dul istaagaynaa marka aad oola socda insha allah mualifku wuxuu yihi raximah اllah yactaqidu ahlu الsunati wاljamaca ahlu sunna waljamaca on xalay soo sheegnay yaa loola jeedaa ahlu sunna waljamaca yaa loola jeedaa xalaan soo sheegnay aلصaxaabatu wالtaabicuuna waman bacdahum wifqa fahmi salafi الصaalix salafu الصaalix fahamkoodii dadka qaatay baa la yidhaahdaa ahlu الsunati waاljamaca waxay ictiqaadsan yihiin shukran an allaha tabaaraka wa tacaala waxdahu alla tabaaraka wa tacaala inuu yahay maxay keligii alla tabaaraka wa tacaala waxdahu keligii inuu yahay mutafaridun mid la gooni ah oo cid la wadaagta ayna jirin bilkhalqi abuurka soo sheegna ma bilkhalqi abuurka wاlmulki maamulka iyo madaxnimada iyo watadbiiri wax maamulidda midna waa abuurka boqortooyada guud waxna waxaa weeyaan waa maamulka isbedelka insaanka geerida iyo dhimashada qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi ina rabbakum suuratu alacraaf ayadda 54 dadow rabbigiin aan idin baro wuxuu yidhi alle allah wey almacbuud way noogu imaan doontaa tawxiidka tawxiid اluluhiya wa tawxiid الطaaca wاlinqiyaad wa tawxiidu afcaali cibaad tawxiidka markaan ka sheekaynay noo imaan doontae dadow rabbigiin waa allah aladi allah soo khalaqa abuuray u fiiso aلsamaawaati wاlard fii 6 ayaam samaawaadka 7 ah iyo dhulalka 7 ah allah wuxuu ku abuuray 6 maalmood gudahood wamaa masanaa min luguub aayad kale ilah wuxuu leh wax dhiba nagama soo gaarine wuxuu alla ku abuuri karaa kun fayakuun bini aadamka la barayaa tartiibka hooyadu intay uuraystay dhali kartaa bini aadamka la barayaa tartiibka 9 bilood hooyadu inay uur ku sido wax walba tartiibka la baraya alla laa yucjizuhu shayء fi اlardi wala fi الsamaa ilahay wax cajiz geliya lama arko tabaaraka jala wacala uma intaa kadib istawa alla waa uu ka sara maray cala alcarshi carshiga ayuu ka sara maray qaala tacaala alraxmaanu cala carshi istawa istawaa bimacnaa calaa wartafac waa uu ka sara maray mar kalena waan sharxi doonaa haddii alla yidhaahdo booskeeda alla wuxuu yidhi yukshi leyla nahaara alla waa midka geliya alleyla habeenkiibu annahaara maalinta dhex geliyaayo mara habeenkii baa yaraada mara maalintii baa yaraad yatlubuhu xaal uu leylku raadinayo maalinta xafiifan si isdaba jooga si isu daba socdaan wالshamsa wاlqamara ayuu alle maxaa la yidhahdaa tabaaraka wa tacaala abuuray oo isdhexgeliyaa oo alla abuuray wالshamsa wاlqamara maya wالshamsa qoraxda iyo wاlqamara iyo wالnujuuma musakharaatin biamri waa kuwa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku sakhiray biamrihi amarkiisa ay ku socdaan soma alaa lahu اlkhalqu ilaahay wuxuu keligii leeyahay abuurka wاlmru maamulkana asagaa laho asagaa ilaahay waxna abuura maamulkana asagaa iskale tabaaraka allahu rab اlcaalamiin alla saree allihii rab اlcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa suuradda marka waxay tilmaamaysaa tawxiid rububiya wa qaala tacaala ilahay aayadkan wuxuu ku yidhi lilaahi alle keligii wuxuu leeyahay mulku samaawaati samaawaadka maamulkooda iyo wاlard yakhluqu waa abuuraa maa yashaa wuxuu doono so ilahay mashii'adiisa kuma xidhno almashii'atu wاliraada baabu اlqada wاlqadar markaanu gaadhno ayaanu mari doonaayo sida imaamu shaafici dhihi jiray maa shiئta kaana wain lam asha wamaa shiئtu lam yakun in lam tasha allah waxaa doonto wuu dhici anigu yaana doonine waxaan anigu doonana ma dhacayo adigu haddaada doonin qaala allahu tabaaraka wa tacaala wamaa tashaa'uuna ila an yashaء allah marka qadarkaan ku gaari doonaa
ma kana wma yakunu wma lam yakun low kana kayfa yakun ilahay inuu wax walba og yahay tabaaraka wa tacala. lilahi milku الsamaawaati wاlأrض yakhluqu ma yasha. wa qaala tacala rab اlciza wuxuu leeyahay tabaaraka jala wacala low alle wuxuu leeyahay keligii mulku الsamaawaati wاlأrض waa boqor sooma ahayn almulk mulku الsamaawaati wاlأrض boqortooyada iyo maamulka samaawaadka iyo dhulka ayuu leeyahay. yuxyi waa nooleeyaa ciduu doono wa yumiitu waa dilaanaa waqtiguu ciduu doono. ajashu dhalashada iyo dhimashadu gacanta ilahay bay ku jirtaa soo saas maaha. yaa mashaa'ikh cidan allahin miyaa wax disha? ma cidan alla ahayn baa wax noolaysa? ma cidan alla ahayn baa wax arsuqda? ma cidan alla ahayn baa wax abuurta? ma cidan alla ahayn baa wax barbaarisa? tawxiid rububiya la yidhahdaa. lahu mulku الsamaawaati wاlأrض yuxyi wa yumiit wa huwa calى kuli shayin qadiir. ilahay wax ku culus maa jira? qaadirun calى kuli shay, shay walba alle waa awoodaa tabaaraka wa tacaala. kadib uu baab kaluu guntay wuxuu yidhi almushrikuuna laa yunaasicuuna fi tawxiidi rububiya. mushrikiintu laa yunaasicuuna kama murmaan, lam yunaasicuu kama murminba fi tawxiidi rububiya. tawxiidka la yidhaha tawxiid rububiya muranba weligood mayna gelinin. ogaada gaalada in yar oo mulxidiin la yidhaahdo qur-aankuna dahriyiin u yaqaano, wamaa yuhlikuna ila dahru. qolo yar oo noocaasoo fulla qaliila ah ma ahane gaal adduunku ama ahlu kitaab ha noqdo ama mushrik ha noqdo ama buudi iyo dabcaabud ha noqde way isku waafaqsan yihiin inuu ilaahay koonkan abuuray. soo ma koonkan inuu ilahay leeyahy way isku waafaqsan yihiin. keligii inuu wax dilana way og yihiin, inuu wax nooleeyana way og yihiin. soo ma laakiin maxay inkirsan yihiin? tawxiidka noo imaan doono oo cibaadada inuu keligii leh, bacfiga iyo in laysa soo saari doono lays xisaabin doono. umuuraha wey waana midda qur-aanku 13 sano maka nabigu intuu joogay qur-aanka maka kusoo degay aad waxaa loogala hadli jiray dhimashada iyo bacfiga lana iyo cibaadada lianna waatay inkirsanaayeen. wuxuu yihi mualifku raximah اllah wa hada الtawxiidu huwa اlmusama bitawxiid rububiya. tawxiidkan aanu nidhi gaaladu aslanba lam yunaasicuu waa tawxiidka loo yaqaano tawxiidka keliyeynta alla loo keli yeelo rabbinimada. wa huwa mustaqirun fi nufuusi اlbashar. bini aadamka oo dhanna qalbigiisu waa degan yahay oo waxaa la yidhahdaa tawxiid اlfitra. magicii tawxiid اlfitra, fitrat allah alati fatara الnaasa calayha. waa caadi, waa ilaahay baaba ku abuuray qof walba inuu dhaho ilaahay baa jira. xataa gaalada qur-aanka faidaa rakibuu fi lfulki dacaw llah mukhlisiina lahu diin. arrintu markay ku adkaata xataa yani waxaa weye ilahay bay beryi jireen tabaaraka wa tacaala. wa huwa mustaqirun fi nufuusi اlbashar laa yunaazacu fiihi axadu min annaas. laa yunaazacu lagalama doodo fiihi tawxiidka dhexdiisa axadu min annaasi lagalama doodo musliman kaana aw kaafira. gaalay muslimba way yaqaanaan. kama qaala allahu tabaaraka wa tacaala can اlkufaar. ilahay gaalada markuu ka sheekeynayo wuxuu yidhi walain sa'altahum ya muxamed sala اllah alay slam, nebi muxamedow haddii aad weydiiso mushrikiinta, man haddaad weydiiso waa kuma manka khalaqa الsamaawaati, waa kuma midka abuuray samaawaadka, wاlarda waa kuma khalaqa اlarda, dhulalka midka abuuray waa kuma, wasakhara fududeeyey ashamsa qoraxda iyo wاlqamara, layaquulunna waxay dhihi doonaan allahu. warka yaa yidhi? yaa ka warramaya mushrikiinta? rab اlciza alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu اlkhabiir. asaga yaqaan baa ka warramaya rab اlciza tabaaraka wa tacaala. sida oo kale wa qaala tacaala canhum ayضa, mar labaad alla wuxuu asagoo ka sheekeynaya mushrikiinta wuxuu yidhi wamaa yu'minu akharuhum biاllahi ilaa wahum mushrikuun. wamaa yu'minu ma rumeeyo akharuhum gaalada mushrikiinta badankood bilaahi alla ma rumeeyo. badankood alla ma rumeeyaan ilaa hadday rumaynayaan walxaal hum ayagu mushrikuuna ayagoo ilaahay wax kale la caabudaya ma ahane. yacni hadday rumaynayaanna ilaah bay cid kale la caabudaan tabaaraka wa tacaala. waa aayad cajiib oo caddaynaysa
oo gaalada iimaan qaybta rububiyada u sugaysa oo ilaahay baa u sugay tabaaraka wa tacaala wamaa yu'minu akharuhum billahi ilaa wahum mushrikuun oo hadda maxaan soo maraynay war yaa abuuray wayaa abuuray maxay dhahayaan sayaquuluuna lilah sayaquuluuna allah ilaah baa abuuray bay leeyihiin walidalika baa mujaahid fiiriya mujaahid binu jabrin waa taabici kabiira waana talabadii iyo ardaydii cabdullaahi binu cabaas gaar ahaan tafsiirka ka qaadatay ida jaءaka tafsiru can mujaahidin faxasbuk hadduu tafsiirka mujaahid binu jabrin xaggiisa hadduu kaaga yimaado facala الra'si wاlcayn marka waa imaamu fi الtafsir waana ardayda cabdullahi bn cabaas wuxuu leeyahay asagoo fasiraya aayadda iimaanuhum iimaanka uu rabbi u sugay waa qowluhum hadalkii ay dhaheen baa iimaana allahu khaaliqunaa alla ayaana abuuray wayarzuqunaa alla ayaana biila na arzuqa caafimaadkana siiyo awlaada bixiya arsaaqadu way ballaaran tahay annaga markaan arsaaqad maqalno waxaa nagu soo degdega wax la cuno may arsaaqadu waa shay ballaaran caafimaadku waa risqi oo awlaadu waa risqi oo caqligu waa risqi oo xoog hadduu alla ku siiyo waa risqi oo cilmi iyo aqoon hadduu alla ku siiyo waa risqi ogaada risqigu waa abwaab ballaaran wey yaa bixiya waxaasoo dhan allahu tabaaraka wa tacaala wayarzuquna wayumiitunaa asagaana dila fahada iimaanun buu yidhi horta intaa waa iimaan ay dhaheen allahu khaaliqunaa wayarzuqunaa wayumiitunaa waa iimaan maca shirki cibaadatihim gayrahu iimaankaasi way la imaanayaan ayagoo haddanana ay ku garab wadaan ilaah inay cid kale la caabudaan aayaadka soo socdaana tusi doona ajcala alaalihata ilaahan waaxidan ay dhihi doonaan iyo inahum kanuu ida qiila lahum laa ilaha ila allah yastakbiruun aayaadka noo soo socda biidn illahi tabaaraka wa tacaala ciwaan kale ictiqaad lmushrikiina ana aalihatahum yutawasalu biha ila allahi laanaha takhluqu wa tarzuq ictiqaad lmushrikiin mushrikiinta iimaankooda ay ictiqaadsan yihiin ayuu u baab yahay oo maxay aaminsan yihiin ana aalihatahum ilaahyada waa min baabi اlismi faqad ee ilaah la qiraya ma ah ogaada laakiin maadaama ayagu ictiqaadsan yihiin inay ilaahyo yihiin baa loo sallimayaa magacyadooda un baa loo deynayaa wailaa ilaah ma aha lakum diinukum waliy diin bay la macno tahay oo de diin baila diin waa lagu magacaabi karaa soo maa min naaxiya luqa wa min naaxiyati ictiqaadi hada lqowm haulaai lqowm ictiqaadkooda waa loo dhigi karaa wailaa ilaha runta waa allah alwaxid alfard الصmd aladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan axad aladi lam yalid walam yulad lam yatakid صaaxibaة walaa walada allaha koonka laa bidaaya lahu walaa nihaaya huwa alأwl wاlآkhiru wاlظaahiru wاlbaطinu huwa alأwl falaysa qablahu shay wahuwa alآkhiru falaysa bacdahu shay wahuwa الظaahiru falaysa fawqahu shay wahuwa albaطinu falaysa dunahu shayء wahuwa calى kuli shayin qadiir allahaas baa anagu caabudaynaa soo marka ana aalihatahum ilaahyadoodu yutawasalu bihaa ilaah ila llahi ilaahay baa loogu tawasulaa yani ilaahay baa loogu dhowaadaa tabaaraka wa tacaala mujeedaan ilaah baa loogu dhowaadaa ayaga xaggooda ilaahyadooda maxay ugu dhowaadaan ilaah oo waxay leeyihiin waan ognahay ilaahyadan inayna ayagu wax abuurina ilaah baan ugu dhowaanayna ayagaa ilahay noo dhoweynaya laa anaha takhluqu wa tarzuq ma aha inay ayadu ilaahyadu wax abuurayaanoo ay wax arsuqayaan ma aha warka aada ila fiiriya ilaahyadan ay caabudayaan waxay leeyihiin ilaah bay noo dhoweynayaan laakiin ooma caabudayaan inay ayagu wax abuuraan ama wax arsuqaan warkaa waa la fahmay sooma ha marka uu kuu sharxaya wuxuu yidhi falam yakun ilmushrikuuna gaaladu ma aynan ahayn yactaqiduuna kuwa aaminsan ana aalihatahum ilaahyada ay caabudayaan mushaarikatun mid la wadaaga lilaahi alla fi lkhalqi inay alla wax la abuuraan
oo ilaahay abuurka la wadaagaan ma ayna aaminsanayn bal kaanuu yactaqiduuna iska daa inay saa aaminsan yihiino waxay aaminsanaayeen ana dalika abuurkaasi lilaahi waxdahu inuu alla gooni u yahay saasay aaminsanaayeen oo da ilaahyadoodu marka maxay qabanayaan wa ana aalihatahum waxyaabahan ay ilaahay sokadiisa caabudayaanna yutawasalu biha ila allah ilaahay jaranjar loo fuulo weeye oo ilaahay baa loogu dhowaadaa watuttakhaduu shufacaa'a waxayna ka yeeshaan ergooyin kuwa ilaahay nooga orgeyay waxay leeyihiin cinda allahi bay nooga ergeynayaan cinda allahi bay nooga ergeynayaan waxay leeyihiin ilaahay waa loo kala dhow yahay saa daraaddeed soomada arkay dadka dhaha awliyadan ilaahay usii maraynaa soomadan arkin awliyadan ilaahay usii marayna oo maad ilaahay keligii caabudid abuurkaba keligii baa leh risqigana keligii baa bixiya keligii baa ku dilaya keligii baa ku soo saari doona war maad caabudid waxay leeyihiin waa runta laakiin ilaah waa loo kala dhow yahayo madaxweyne markaad doonayso wasiir baa loo maraa war waa bashar ilaahay iyo khaaliq iyo makhluuq baad adigu isku miithaalinaysaa madaxweyne muxuu yahay haddaadan weligaa madaxweyne la kulmin miyaa lagu janayn mise waa lagu naari ma camal ku xidhan baa jira madaxweyne inaad la kulanto laakiin allah inaad la kulanto camal baa ku xidhan oo cibaada ku xidhan oo taaca ku xidhan waana asbaabaha aan kitaabkan u akrisanayno inaan caqiidadeenu noo saxsanaato oo aan qubuuraha la dul fadhiin oo aan mataqaana ilaahay khayrkii la caabudin oo aan ciid iyo caro laga soo qaadanin oo aadan dhihin wadaad hebel baan barakaysanayaa oo aan la isku dilin soomaad gar la isku jiidhin arrintaa weeye arrinta muslimiinta lagala dagaalamayo saan xalay qisadii tubaysh ibnu xubaysh aan soo sheegnay oo kale wa ana aalihatahum yutawasalu biha ila allah watuttakhaduu shufacaa cinda allah kama qaala tacaala siduu alla yidhi alaa lilahi diin alkhaalis dhegaysta dadow oo dhegahana fura caqligana fure lilaahi alle keligii wuxuu leeyahay addiin alkhaalisu diin barax tiran diin aan waxba aan la barxin beer diin aan waxba lagu darin biyo cadoo cadaan casiir lagu darin biyuhu ma isbedelayaan waa biyaha cad wey alaa lilahi diin alkhaalis intaa markuu alla sheegay wuxuu yidhi waaladiina kuwa ittakhaduu yeelanaya min duunihi kuwa alla sokadiisa yeelanaya awliyaaa kuwa naasiriin oo u gargaaro oo ay baryaan oo ay wax ka raadsadaan oo ya maa nacbuduhum awliyaaa kuwa ilaahay kayrkii awliye samaysanaya waxay dhahayaan yaquuluuna waxay leeyihiin maa nacbuduhum ma caabudayno ilaa haddaanu caabudayno waxaan u caabudaynaa liyuqaribuuna inay noo dhoweeyaan bas ila allahi zulfa inay alle noo dhoweeyaan oo keli a baanu ka rabnaa ee waanu ognahay inayna ayagu waxna abuurin waxna arsuqin arrintaa waa arrin khatara waana caqiide khaldan walidaalika baa nabigu markuu maka qabsaday alayh slat slaam 360 sanam baa dhex yaalay walcajiib sanam walba shaqo gooni ah sanamkii abaarta hadday dhacdo sanamkii caruurta la weydiisanayey sanamkii dagaal markuu dhaco asaga la baryi jiray sanam walba nooc buu lahaa saa daraaddeed qubuurta iyo walidaalika ba shareecadanu qubuurta way la dagaalantay oo waxaa weeyaan lacana allahu alyahuuda waannasara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida marka qubuurta in la weyneeyo qubuurta waxaa lagu talagalay in la soo ziyaarto oo aakhare ay kusoo xusiso oo dhahdo assalaamu calaykum daara qowmi mu'miniin waina in shaء allahu bikum laaxiquun nas'l اllaha lana walakum alcaafiya antum salafuna wanaxnu biاlafar inaad kusoo cilmi qaadato ayaa loogu talagalay in la baryo looguma talagelin hal su-aal hadda intaynan haddaan isweydiino shaksigan qabriga ku jira laba aan ka soo qaadno inuu weli yahay aan ka soo qaadno welinimadiisa ma isagay anfici mise aday ku anfici isagay anfici ilahay buu la hortegay waa kow hadduusan weli ahaynna soo laf cidla atoobin kuma haysid marka haaso saas maha maba ogida qofkan inuu wuxuu ku dhintay miyaad ka garanaysaa ikhwaani qof qalbigiisa jexa ma garanaysa walaalayaal
ولا ليال ما جرو قف قلبي قفنا انتو جيحيري قف كان تزكية لسي ولا ليال ما جرو ولذلك أيام جنة وقرينا عد أي شريعة وقرتي بس أيام جنة وقرينا أبو بكر في الجنة صوما وعمر في الجنة وعثمان في الجنة 10 مبشرين بالجنة أبو هريرة عائشة ويدين خديجة ويدين هذا الصحابة وحاجر الجنة قارنا قولي له بشاري بلال اسمه كل ذلك وقال تعالى إلهي آياتك الوحوكيري قل أرأيتم شركاءكم الذين كتابك وحو عجائب كله يا إخواني قرآنك أيون وحريا يعني قرآنك يسيد عقيدة أي لوغا قاتب ونبريا ولذلك في رسالة وحيري قل وحضر يا محمد عليه الصلاة والسلام شكرا أرأيتم بالكورما وسؤال دأوين إلا سويدية مدن شركاءكم بل قوة آذ إلهي الله عابود إيسان شركاءكم شركاء محل إذا أيها الإخوة شركاء وحوى شلون قمت غنان أيها تبت غنان وحي وحل اسكدر سدال إذا شركاء وحي وحل اسكدر سدال أيها لي هذا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله كورما الشركاء الذين كواسوا تدعون عابود إيسان من دون الله ألسوا كذيسا أرقان فيري عجائب أروني بل إتصيع ماذا وحا خلقوا أي أبورين من الأرض للك أبور كيسا بل تاكذا أي كدر صدين إتصا للك أبورين صوما للك أبورا إتصا بل قيبت أي أبور كيسا كدر صدين تاكذا يكدر صدين للك يكدر صدين باعي كدر صدين أروني ماذا خلقوا من الأرض أم مسأرنكو ساس ما هني اللهم أيقوا وحيليهن في السماوات أم لهم شرك مس إلهي بيلليهن في السماوات في خلق السماوات لولك الجواب ذو ويدينه ما إلهي بيسمد وحلا أبورين ما إلهي بيسمد الشرونغو إيا الشركة أيقدر صدين تبارك وتعالى أما أتيناهم مس وحان نصينا كتابا ما كتابا نصينايو فهم أيقوا على بينة منه حجة عد بي أرنك واهستان ما أنك حق أيقوا أمرك كيمت ما يقص سؤالات بلودي أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم أتيناهم كتابا فهم على بينة من ربي مثل أنك سيني محي ورقدوا قرني إني وحنا قدر صديانو أنك حق أيقوا حجة كهستان الله وحيري انت من نما أهاني بل إن يعد الظالمون أي ما يعد الظالمون ظالمين تؤسمي بوهان بعضهم بعضا ظالمين تؤسم الشيغان أو اسمي بوهان قار بقار كله إلا غرورا كذا ما هني وحي اسو الشيغان ووحي وحبك الجنوي إن بمعنى ماوي سي نفي إثبات النقط إن يعد الظالمون أي ما يعد الظالمون ظالمين تؤسما يبوهان بعضهم بعضا إلا غرورا وقال تعالى عن مشركي قريش لمنكي مشركي قريش لو حيري حق هذا كيري إنهم أيقوا أيضا في ريا وين كذا إيا قلبك موقع إيا بوسك يقول هذا إنهم أيقوا كانوا وحي أهايين قريش إذا قيل لهم هدين لو يلاهدو لا إله إلا الله بها أو لا معبود بحق إلا الله ألا حق لقو عابده أو عبادة حق له أو إلا سجود كلجي مضن أو إلا الركوع كلجي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ألا كلجي عبادة مضن مجره أما مجره قدها إلا الله ألا موين انت أكون واقع وأنا منك غرسنا توحيد ربوبية وأنا منك لها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وسخر الشمس والقمر ليقولن الله مركي لسوغاري عبادة التوحيد أفعال العبادة وحال يريك إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله لا مركي ليلادو ما حي سبينين هيا يستكبرون وإسكوين يسينيينو وإسكا كبرينيين آيادو انتاكم مدامانينه بل هذا الكوذين القرآن كو حكا شيكي ويقولون وحيدهين أئنا أننا مياء لا تاركوا كتغيا أو كتغيا آلهتنا إلهي يدا لشاعر قبيا مجنون مدح لغا قلي وأيو
ونبي محمد عليه الصلاة والسلام أفلقادوي ونين قبياء أو حدانا مدح لقى جرو أو والا أو قاعة ميانا نقو إلهي يذي أوقت سجيناه ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وكي إلهي تبارك جل وعلا بل آية نفيرية. وقال الله تبارك وتعالى عنهم أي عن مشركي قريش أجعل الآلهة وحيدا المركو ألا يري وألا كيلي عابدة والنبي أوكر عليه السلام وحيدا أجعل الآلهة إله واحدا ميالا يا إله يدي هالإله ورمويعي يصدح بقول إيا اللحدا إله بانوغو في الله وصنا والبأبار إيا علاض إيا آنو يا ما هل إله أبو محمد نويري عليه الصلاة والسلام إن هذا لشيء عجاب أرن كري أرن لياب الله لقادن كرين عقل يقول أسقادن كرين ويا أي دهان مركا قرآن كسلاس أيو توحيد كان أصله توحيد ربوبية وحجري مؤلف كباب كان وحجري من فوائد تقرير الله تعالى لتوحيد ربوبية سؤال بكرة وحجري توحيد كان إلى توحيد ربوبية إلا قرأ فائدة كجرت أم حيطة من فوائد تقرير الله إلهي إنو قرره إلهي إنو عديه تبارك وتعالى لتوحيد ربوبية إلهي إنو تقريريه عديه أو ساو عديه فائدة كجرت وامح وحجري إنما قرر الله تبارك وتعالى الله عديه قرر بمعنى بين ووضح الله عديه تبارك وتعالى هذا التوحيد توحيد كمحو الله عديه لإثباته وتأكيده وللاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية لإثبات الله إنو الصغو وتأكيده إيا إنو أتكيو إيا وللاستدلال به توحيد ربوبية إن لو دليشدو على وجوب التوحيد كليين تألا لو كليين في الألوهية أي بمعنى توحيد الطاعة والإنقياد وتوحيد أفعال العباد توحيد كان لو إيمان دونه oo in alla keligii loo sujuudaa oo in keligii alla loo rukuucaa oo alla keligii in la baryaa oo alla keligii in la tala saartaa oo alla keligii in nadar loo galaa oo alla keligii in lagu dhaartaa tabaaraka wa tacaala oo alla cibaadada khaaska uu u leeyahay oo dhan in la sugo oo alla loo sugaba kana loo taqriiriyay oo alla u cadeeyo tabaaraka wa tacaala id bal raaci anna tawxiid ar-rububiyyah توحيدك أنه صومرنا صومرنا إلا حري يستلزم وحكاسنا يا ألا يعبد إلا الله اللهم أهنا إنا وحكى للعابدين توحيد الألوهية عفوا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الربوبية إلى القرطو يستلزم وحكانا يا أو كاسنا يا أو كدلنا يا معي ألا يعبد إلا الله وحده ألا ما ينئنا عدك للعابدين هذا الدليل عجائب كسينا يا شيخ قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وأول نداء بليلي وإله القرآن كيس تبارك وتعالى قرآن كالتسلسل كسورة الفاتحة ثم سورة البقرة مركي سورة البقرة هي فاتحة وقوخ وقوه ريو إلهي قال يا مسلم بقول واقعي آيات كورس مجرته لا يا أيها الذين ولا يا أيها الناس أول آية وأول نداء إلهي قلنا واقع محال إلى ذا ضدك أودن بور إلهي الله الله وانا آيات شيخ الإسلام ابن تيمية وكقرأ كتاب حجم جيسو انت نيهي قول لي هذا القاعدة العظمى أما لي هذا العبودية آيات بلويدية ما معنى قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى آخر الآية ثم ألف رسالة كاملة ضخمة مطبوعة موجودة مركا أنا وحيري يا أيها الناس ضلوا سادوا الانتهين وجنس الناس قال يا مسلم بس لي رجل يا دمر صغير يا كبير ننكسر خطاب كان وكسر تقالوا إلا والله الله يا أيها الناس ضلوا محال الربا اعبدوا ربكم محال قول بالله بي اعبدوا ربكم وري ربكين عابدا خالقين عابدا رازقين عابدا مالكين عابدا مربكين عابدا مدبركين عابدا مركاسا وليبا لغو شيغو لي الذي اللي عابدا ربكي عابدا خلقكم اذا ابوري وفي صلاه توحيد ربوبيه يستلزم محوكا سنه الا يعبد الا الله ربكين عابدا بالي الذي خلقكم عابدا والذين
kuwiina abuuray min qablikum idinka horreeyena abuuray allaha caabuda marka tawxiidkii oo rububiyadii baa maxaa lagu xidhay tawxiid aluluhiya oo inaad qirto tawxiid rububiya yastalzimu an laa yucbada ila allah waxay keensanaysaa cidan alla inaan la caabudin oo maxaa dhacay cidda adiga ku abuurtay ma mudna inaad caabuddo cidda adiga ku arsuqda soo ma mudna inaad keligii caabuddo cidda adiga ku dili doonta ee ku soo saari doontaay ma mudna in la caabudo cidda caafimaadka ku siisay ma mudna in la caabudo tawxiid rububiya weeye intaasoo dhan idan tawxiid rububiya yastalzimu an laa yucbada ila allah ina rabbakum allah ya ayuha الnaasu اcbuduu rabbakum aladi khalaqakum wاladiina min qablikum lacalakum tattaquun aayaddan kala fiiri wa qaala tacaala dalikum allahu dalikum kiina allahu alla wey war midkaa laydiin soo tilmaamay horta waa allah ay ilmacbuud waa midkii la caabudayey rabbukum waa rabbigiin lahu rabbigaa wuxuu leeyahay almulku boqortooyada iyo maamulka keligii baa leh laa ilaaha ilaa hu alla xaq lagu caabudana mawjuudun ma ahaani ila allah asaga mooyeen ee fa annaa tusrafuuna war xaggeebaa xaqa laydinkaga leexiyey xaqu waa cad yahay ee annaa tufakuun fa annaa tusrafuun aayaddaa u fiirsada waxaa laysku dhex dhigay tawxiid aluluhiya wa tawxiid alcibaada wa tawxiid alطaaca wa tawxiid afcaali alcibaad iyo tawxiid alrububiya yastalzimu an laa yucbada ila allah dalikum allahu macbuudukumna marka allah waa macbuud min aliha yalihu ilahan ay macbuudan kan la caabudo allahu alla weeye markaasaa waxaa la keenay rububiyadii rabbukum khaaliqiini weeye marka midka la caabuday waa kuma waa kii ku abuuray khaaliqaagii weeye lahu lmulku maamulkana asagaa leh waa tawxiid rububiya laa ilaha ilaa hu waa tawxiid aluluhiya cibaadadana keligii baa leh faannaa tusrafuun wa qaala tacaala falyacbuduu alla wuxuu yidhi ha caabudeen war dadku ha caabudeen reer maka ha caabudeen muslimiin oo dhanna ha caabudeen gaar iyo muslimba rabba hada albeyt gurigan oo kacbada ah rabbigila ha caabudeen aayadda maxaa lagu bilaabay cibaada haddana maxaa la isticmaalay rab idan falyacbuduu ha caabudeen haye rabba hada albeyt khaaliqu hada albeyt maaliku hada albeyt soo ma allaha beytkan abuuray soo tawxiid rububiya ma soo tawxiidu afcaali illahi ma haddaba tawxiidu afcaali illah wa tawxiidu alrububiya yastalzimu an laa yucbada ila allah falyacbuduu ha caabudeen rabba hada albeyt gurigani allihii la ha caabudeen falyacbuduu rabba hada albeyt markaasaa fiir waxaan raacay alladii allahaasoo rabbigaasoo acamahum soo tawxiid rububiya ma yaa wax biila yaa wax arsuqa aayadda lixdan iyo konton iyo lixaad suurat dhaariyaat bal aqri aayadda konton iyo lixaad suurat dhaariyaat wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun maxaa ku xiga ma uriidu minhum min risq wama uriidu an yuطcimuun ina allaha huwa arazaaqu du lquwati اlmatiin alla keligii baa wax arsuqa calayka bitaqwى اllahi in kunta gaafila yأtiika bاlarzaaqi min xayثu la tadri fakayfa takhaafu اlfaqra wallahu raaziqa faqad razaqa الطayra wاlxuuta fi اlbaxri wman dana ana الrisqa yaأtii bquwati ma akla اlcusfuru shayئa maca الnisri tazulu can الdunya fainaka la tadri إida jana calayka اllaylu hal taciishu ilى اlfajri وkm min صaxiixi maata min غayri cilaة وkm min saqiimin caasha xiina min الdahri shaacirkaasuu le cajaa'ibka oo caqiidada u taqriirinayo falyacbuduu raba hada اlbeyt aladi aطcamahum min juucin waaamanahum haddanana mataqaanaa wayutakhaطafu الnaasu min xawlihim sooma reer maka hareerahooda ayaa la dafayey lakin ilahay wuxuu ku manaystay nicmaة اlmn almnu huwa الrisq risqiga waa amniga amnigii nabadgelyadu waa risq acamahum min juucin waaamanahum
haddana ka nabadgeliye min khawf fadakara tacaala sharaxan yarka cajaa'ib waay fadakara tacaala alla wuxuu sheegay annahu waxdahu horta alla keligii inuu yahay khaaliquhu midka wax abuuray ma cid wax la abuurtay baa jira waraasiquhu midka wax biila ee wax arsuqa wa haadaa arrinka aan soo sheegnay mima kii buu ka mid yahay laa yashukuuna fiihi gaaladu ayna inaba dhexdooda wax shakay uusan kaga jirin wajacala dalika wuxuuna alla ka yeelay tabaaraka wa tacaala xujatan calayhim xujo dushooda lagu oogay oo ah maxaa xujadu maxay tahay fii wujuubi ikhlaasi alcibaadati lahu waxdah mar haddayna shaki kaga jirin abuurka iyo arsaaqada iyo noolaynta iyo dhimashada iyo tawxiidu afcaali illah haddayna shakiba kaga jirin alla tabaaraka wa tacaala wuxuu xujo ooga dhigay fii wujuubi ikhlaasi alcibaadati lahu inay cibaadada keligii siiyaan waxdahu keligii laa shariika lah inayna ilahay wax kale la caabudin tabaaraka wa tacaala wa qaala ilahi taala alla wuxuu yidhi aata xujadii qul alxamdu lilahi وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون إلهي وحكم بالله والنبي صلى الله عليه وسلم وحدد الحمد لله ده الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان الحمد والثناء على الله وأمان إله إلا أمانة يتبارك جل وعلا الحمد لله وسلام نبت قلينا على عباده الذين اصطفى الضوامدي الله دورتي الرسالة الله دورتي تبارك وتعالى إلهي حوري الله خير ورما إلهي با خير بدن وما عبادتي سا خير بدن وما إن كلي عابدا خير بدن أما يشركون مسوحة أي إلهي أو دريان وإلهي غيرك عابدا ينبا خير بدن حجة الله قدك أمن خلق السماوات والأرض توحيد ربوبية الله فريسانا يا فريسانا أمن خلق السماوات والأرض وريا سماوات كي ينولك أبوري هايه وأنزل لكم من السماء ماء سمدنا يا بيا إذن ككيرا فأنبتنا صودلي به بسبب الماء بيها سمد كسو دغي سبب تودنا كسو دليا حدائق بساتين يا بيرو وين او اسنديال يا كسو دليا او ذات بهجة قرح صاحبة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أين مرنا صورتقلهين إن أدقيد ديدا أبورتان أإله مع الله أإله أي معبود ورما من عابدا مع الله يا لما عيسى كجواب أإله مع الله هذا المرسى وقرتين سماواتك يا أبوري نورك يا أبوري يا بيها سمدا يا ككينا بيها ككينا وهكذا الله سو ما دحايو كل سو الله ما دحايان الله وحو يري هذا أإله مع الله أي معبود غيره هذا ما مد الله معيسى لا عابده مياجرة أو مع الله الله لسمن وإلهي معيسى تبارك وتعالى بل هم بشره بل هم قوم يعدلون وقال السرفيه حق لغليحي عقلكو ما اوغله وقال ايان در لا دوناي ما قرتين وقال نصيب درم يعدلون بل هم قوم يعدلون اتا لوغما كاين لو امن جعل الارض قرارا وردلكن اد كتمنيسانيد دسميسانيد كسعنيسانيد وبيده iyo badaha ka dilacsanaysan yaa ka yeelay dhul degan oo dhaqdhaqaaqayni oo la yataxarrak amman ja'ala al-ardha qarara وجعل خلالها أنهارا يا ملك دحديس وبيال إيا بضكة شاحي أدومها إيا مراكبتو أيدين مرتو وإسكوه قذبتان بياءت كعبتان دد يدو يبقى كنولاتان وريا إيدين شاحي عجائب صوم إلهي سيدو أقول بدليو سبحانه وتعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا يا ملك كقتمي يبوروا وين بورهنا للكيسان ملكي هيان وجعل بين البحرين حاجزا لببضوا ضحضوضا يا كدغا إنين اسكو درمانين بد معان إيا بطنان وهدنا اسكو درمانين دمياط مصر بيقول الله بل صواب بغضا أإله مع الله أي معبود ما من لعابده أيا هذا مع الله والإله ساس أذو قرتان مياد وحكا لعابده إسان بل أكثرهم لا يعلمون
badankood reer gaalo waxaan ma garanayaan aman yujiibu almudara ida dacaa waa kuma midka ajiiba almudar midka la dhibaato geliyey midka xanuunsan midka musiibadu ku dhacday midka gaajaysan midka baahan midka colaada ay ku dhacday markuu gacmaha kor u taagto yaa ajiiba yaa aqbala yaa xaajadiisa iyo dantiisa u oofiya aman yujiibu almudara ida dacaa inama ashku bathii waxusnii ilى allah waaclamu min allahi ma la taclamuun nabi yacquub alayhi الsalaatu wasalaam nabi ma jiro ilahay barya ila fastajabna lahu zakariya fastajabna lahu wawahabna lahu yaxya waaslaxna lahu zawjah inahum kanuu yusaaricuuna fi اlkhayraat hunaalika dacaa zakariya rabah qaala rabi hab lii min ladunka duriyaة طayibaة inaka samiicu الducاء fanaadathu اlmalaa'ika wahuwa qaa'ima yuصلي fi اlmixraab ana allaha yubashiruka biyaxya nabi ma jiro saalix ma jiro ilaa ilahay baa ducadiisa aqbalaay aman yujiibu اlmudara ida dacaa waa kuma yaa la baryaa yaa gacmaha loo taagtaa yaana ajiiba idaa dacaahu markuu baryo wayakshifu الsuuءa yaa xumaanta iyo xanuunka iyo walwalka iyo walbahaarka buufiska isku buuqa isla hadalka waxaan o dhan yaa qaada wayakshifu الsuu wayajcalukum khulafaaءa alard yaa idinka dhigay dhulkani kuwa maamulo oo khulafa ah oo madaxda qofkuu doono madax ka dhiga qofkuu doonana ka dejiya ailaahu maca allah ay amacbudu maca allah warma waxaa jira midaan alla keyrkii caabudaysaan qaliila ma tadakaruun wax garadkaa idinku yar xusuustana waa idinku yar tahay inaad arrintaa xusuustaan way garan laayihin weli damiin far waaweyn ba wax loogu qoraa kaadi badana waa loo gobolbadiyaa aman yahdiikum waa kuwa midka idinku hanuuniya fi ظulumaati اlbari wاlbaxr markaad badda iyo samada iyo hadda diyaarad ba intay ka haysa diyaaraddaasi hayweyga yaa u jeexay yaa daliilkan keenay bal adi hadda gurigaaga yaa ku tusa 100 albaab baa gurigaaga ku dhegane yaa ku tusay baad u maraysa weligaa ma isweydiisay oo ma isiri kaniyo gurigayga maxaan guryaha kaga gartay oo islaantaada maxaad islaamaha kaga garatay oo caruurtaada maxaad caruuraha kaga garatay oo xoolahaaga maxaad xoolaha kaga garatay oo diyaaradan intaa ordaysa siday labadan diyaaro iskugu dhici waayeen oo mid walba hayway u haystaa oo markabkan mugdigan iyo madowgan allah cajiib waay waxay u baahan tahay iimaanka allah nagu soo aman yahdiikum fi ظulumaati اlbari wاlbaxr wayursil الriyaaxa dabaysha yaa soo dira bushran xaalay tahay mid bishaaraynaysa bayna yaday raxmati hadee roob baa imaanaya markaasaa dabayl yar oo caraf badan oo idgoon baa imaanaysa sahan weeye diyaaradda waxay leedahay dabayshaasi roob baa soo socda ya saxan saxo roob baa soo socda waa kuma yaa idiin soo dira ailaahu maca allah ay amacbudu gayrahu war ma arrinkaasa ya tacaala allahu cama yushrikuun baa lagu khatimay fafi hadihi اlaayaat aayaadkan aan soo marnay suurat namal kullihaa aayaadka dhammaantood iyo kuwii ka horreeyey yunkiru tacaala allah wuxuu ku diidayaa oo ku inkirayaa cala lmushrikiina gaalada aladiina yuqiruuna gaaladaas oo qiraya aaminsan biannahu tacaala waxdahu alle keligii inuu yahay huwa khaaliqu الsamaawaati midka samaawaadka abuuray wa khaaliqu اlard midka dhulalka abuuray wa anahu waxdahu naaficu daar alle keligii inuu yahay midka nacfiga keena caafimaadka keena arsaaqada bixiya addaaru ee dhibkana qaada way yaqaanaan biana hada aliqraara alla wuxuu qiray oo caddeeyey qiritaankaasi lam yanfachum ma anficin waana taa hore usoo sheegnay ma xustaan oo nidhi tawxiidkan macnihiisu ma aha inuu qofku ku islaamayo soo ma lam yanfachum id maxaa yeelay jacaluu waxay yeeleen maca allahi ilahan aakhar falaa tajcaluu maca allahi andaadan wa antum taclamuun ilaahay maciise inaad cid kala caabudo ilahay iyo sheekh hebelow inaad dhahdo maxaa kugu xaqsanaya ilahay iyo sheekh hebelow inaad dhahdo tabaaraka jala wacala ha yeelin arrintaa kufri bay kuu keenaysaa waana caqiide khaldan wey ya allah dheh ya raxmaan ya raxiim ya casiiz ya gafaar ya jabbaar dheh bari ilaahay asaga danahaaga u sheego albaabkiisana garaac albaab la garaaco oo la huba inaan lagu soo celinayni albaabka allah jira garaac alla albaabkiisa habeen walba waa soo degaa rab اlciza waqul yanzilu اljabbaaru fi kuli laylaة bila kayfa
جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول أنا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوه وقبحوا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا أي أسد وريا الدان ربا وريا حانوسا وريا حاجة ربا وريا مراد له ساسو ربي دها تبارك وتعالى أسجى بري مركا وكفى أسجى نكون فيلم تبارك جل وعلا وحجر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إذ جعلوا مع الله إلها آخر يدعونه كما يدعون الله وحاس إلهي لبريان سإلهي أبريان سإلهي أبريان بكون أبريان وهذا عين التناقض فيري أركري وإسكهر إمات رنأة المخالف للشرع شرع كان خلافا والعقل جرات كان خلافا أو عقل جاء إذ إن الشرع عقل لبضوا خلافا تاي وحورة وينو كده من تفرد قفك جوني أو جاي لي الله بجميع هذه التصرفات فعلك أن صار شيء نورن لك أبوريتان كيسة سمد أبوريتان كذا أرزاق ده عافيماتك وحن صار شيء ناي أورن يا وحدي لا يا وحنولا يا وحرزق يا عدة أرنتها أقرتي أو من الخلق أبورك والرزق إيو أرزاق ده إيو والإحياء النورشة إيو والإماتة لما شرب فحق وحواجبك أن يفردا متكاس اللوغونييلو بجميع أنواع الطاعات عباداتك أردن إن إلهي قوني لوغا تبارك وتعالى يقر الشرع والعقل ولهذا أنكر تعالى عليهم بقوله وفرسوا ساس دراد الإلهي وحكو إنكري أإله مع الله أي معبود غيره ورم إله وحاصر رضو قرتان أي العدك إلا عابد إيسان وفرسال كان ملاحظة الشيخ حويري ولم يقل تعالى الله مدهن أخالق مع الله ومحاود حيا أإله مع الله إيا أخالق مع الله محاود حيا وحوين باود حيا صوما محايا لخالق ويقرسيهن لكن واحد يدين وامح ومعبود ألا كلي لا عابدي ديدين مركا خالق ويقرسيهن لما دين أخالق مع الله ورما متكلو السدو الله وحو أبورو أو كلا مياجر لما دين حاليني أإله مع الله لأنهم لا ينازعون في هذا تاني كم دوت كما قبان كذبوا باب كوحويني بطلان الشرك في الربوبية عقلا ونقلا بطلان الشرك إن ألا لو ذاتشيو إن يوحبك كما تشيران تاي باطل ما تغانان إن باطل إيوم حالي لو وحبك كما تجيران إن تاي إن إله إلا لو ذاتشيو في الربوبية في توحيد الربوبية إلا لو ذاتشياي ووحان جرين عقلا وشرعا حق عقلي شرعي قبل وبين الله تعالى اللوحو عدي بطلان الشرك إن إله إلا لا عابده أو وحلو قدره في الربوبية أي في توحيد أفعال الله فلك إلهي سمايو إن عدك لو وحلو قدره أرنك سوى بطلان وأنه لو كان ذلك أرنك هدون لها لفسدت السماوات والأرض سماوات كي ينور لكم ويفسهاد لأهاين وهذا أرنك إنو ساسي هنا مدرك وحال لغو قرتا أو لغو هليلا أو لغو فهما أو لغو قرتا أيضا آضا ومصدر آضا يأيض أيضا أي رجع لغو نقي ساس بالي هذا وهذا مدرك وحا أرنتا لغو هليلا أيضا مرة بعد ببداءة العقول عقلك إسكعت عقلك عد أو قرصونين هرتا والغو قرنيا سالغو قرنيا gaariga meeqa nin baa wada isha gaariga meeqa darawal baa shukaanta haysta alaysa hal sooma hal baa haya u jirsan ma dhici karto yadoo gaari baan wadayaa laba darawal baan leh may maxaa dhacaya shil baa dhacaya xaadis baa dhacaya hadduu ninkii dhaho wadadaas maraya ma ana tara maraya see loo kala soconaya ولذلك آيات عجائب كبدا في رسالة قال تعالى لحولي ما اتخذ الله من ولد الله أكبر الله ما يالن من ولد وأفلقادو إله با ولد له عيسى إله أفلقادو ما نريد بنو الشيء انت أنا كسر بحين ماشان كاي ماضي شن إيا لباتن كبشني نبي عيسى الشيء
waa christmas oo waa loo dabaaldegaya soo lama dhihin oo waa la weynanaya soo lama dhihin dad baan weli fahmin waxa laga wado nabi ciise dhashay xilin oo hadduu dhashay in lagu farxo soo ma aha nabi ciise hal baa ka maqan oo inay fahmaan u baahan nabi ciise dhashay laba mid weeye in la dhaho ilaah baa dhashay waa dadka aaminsan nabi ciise inuu yahay ilaah وهذا كفر آية 72 سورة المائدة لم حكوية تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح كل قالوا محيدين عيسى وإله آية الصدنات سورة التوبة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى عيسى ابن الله ومر بعض طيب laba daran mid dooro inaad dhahdo ilaah baa dhashay soo gaalnimo ma inaad dhahdo ilaah baa wiil dhalayna khalaas labadaa wax ka dhexeeya marka male ifhamu fahma oo carruurta ku tarbiyeeya oo marka ilaahay ciisa dhashay annagoo og ciise inuu 24 dhalanin qatcan ma dhalan abriil buu dhashay nabi ciise taariikhdoo dhanna dib baad ugu noqon doontaan nabi ciise dhashay oo 24 bishan December dhashay macnaheedu waxa weeye imma ilaahayna baa dhashay imma ilaah baa wiil dhalay allana wuxuu yiri mattakhadha Allahu min walad walaysa bimawludin walaysa biwalidin walaysa lahu shibhun ta'ala al-musabbah ilaahi tabaaraka wa ta'ala walad iyo wiil midna ma yeelan lam yattakhidh saahibatan wala waladan xaas إيه إلما من ما يلن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ما دل لما ندل سيكون نقول كلا إله وقت صواب الله ضله الله دلي أم الله دلي لا تأخذه سنة ولا نوم لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ما اتخذ الله من ولد إلهي ولد ما يلن وما كان معه من إله ألم عيسى معها من إله ومعبود ولا عابده إذن أرنك هدان ساكا دقنو قول لي هذا إله معبود كلو لا عابدا جرا لا ذهب ولا تجي لها كل إله والبا بما خلق دوح أبوري صور عدما إله والبا نوكرا صار بوديلا ما يقدر ولدود بنا هيه صومالي ما يقدر ولدود باتين صادر هذا نوكرا صار إله والبا وحوري لا أنت أنا ناس كله هذا اللام بالي هذا صح يلا حناقني بقى انت النهب اللي الهي دو كلا صار الله وحوده ما ساسا مركه صح بركه ما دعي كرتو اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ولما انت اسكد القوقان يومد والبميدك كلا كسر انه كسر ريو او غلبده وكهل وجعل الله ولا على بعضهم على بعض الى يقول سبحان الله الله وكان زهياي إلا دو لما إلهي با جرتا أما إلهي با ويل دلي أما إلهي با قبر دلي أما إلهي با صاحب يا شيء أعوذ بالله وعين الكفر هل اسك إلى عليه إن عروتنا لو تربيه خطروي ها سبحان الله عما يصفون الله وكفق يهي وأنا كدر يهي وأنا كنزه يهي وحا أي كتل ماميان الواصفون وحا أي كتل ماميان آيادا قدام بيس درسي أنا كو ختمي وقال تعالى الله وحيد تبارك جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا آيات كانوا كعجائبا لو كان فيهما هذه السماوات كان إيا دولال كان نحن يوشير لها آلهة إلهية إلا الله ألا ما أهاني معبودك لعابده إيا خالق أبوري هذه مدان أهين يوشير لها إلا الله مدان الله ندوشير لها محاد إلها لفسدتا ويفسهادي لها سماوات كي يدولال كبا انتبه ويفسهادي لها قاعدة القاضي إن مركا وحاوي الله واحد في ذاته واحد في أسمائه واحد في أفعاله واحد في تصرفاته هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء وهو على كل شيء قدير
فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يخاف عقباها الله waxaan weydiisanayaa تبارك جل وعلا inuu dersiga uu nagu anfaco waana dersigeeni labaad halka ayaan caawa kusoo afjarayna dersigeeni وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله هذه wax su'aalaha jiraan إن شاء الله بسم الله تفضل شيخي عليكم السلام ورحمة وفيك طيب بسم الله horta fitanku markii ay bataan ha lagu dhago kitaabka quraanka iyo sunnada addu calayha binnawaajid goos dambeedka waliba in lagu qabsaa saa xal sheegnay kelimada xal waan baraarujinay wax xustaan ma malaynaya cilmi walba aqsaam buu leeyahay akhi kutubtan fiqiga ee noo qoran kulligood aqsaam bay leeyihiin caqiidadu aqsaam bay leedahay adiga dhowr magac baa lagu dhihi karaa waxaa lagu dhihi karaa cusmaan waxaa lagu dhihi karaa abu cusmaan waxaa lagu dhihi karaa umu cusmaan alaysa kadalik lakin yuqsadu daatan waaxidan soo ma hal daataa loo socdaa walaysa inay saddex qof ay kala yihiin waxaan ognahay kulligeen oo ragga aad sheegtay iyo kulli la isku wada waafaqsan yahay luqada marka laga hadlayo khaasatan marka laga hadlayo naxwada marka laga hadlayo kitaabka ugu yar ee la yidhaahdo al-ajrumiya la yidhaahdo kalaamka markuu qaybinayo wuxuu dhahaa alkalaamu huwa allafdu almurakabu almufiidu bilwadci waaqsaamuhu halaath ismun wa ficlun wa xarfun jaa limacna wuu qaybinayaa xaggee laga keenay ma qur-aan baa kusoo arooray ma sunaa kusoo aroortay maya daliilka lagu saaray magaciisa waxaa la yidhahdaa waa la isla ogol yahay dhammaan inuu daliil yahay kutubta usuululfiqiga abana lagu darsaa waa baab dhan oo la yidhahdo alistiqraa waa maxay istiqraa waxaa la yidhahdaa tatabuc aladilla adilada marka si fiican loo dabagalay oo loo dhuuxay ayaa waxaa la arkay maxay luqada carabiga inay saddexda ya ima inuu waxan ismi yahay ama al ama tanwiin ama xuruuf lqasam ama idaafa wixii lagu yaqaano dee maxaa la yidhahdaa ismiga ama inuu ficil yahay oo qad iyo siin iyo sawfiya taa u taanidii saakina inuu yahay ama inuu yahay xarafkaasoo laba weliba usii qaybsama jaa limacna iyo midka almuhim tawxiidkuna waa noocaas oo kale waa caqiidadii qur-aanka marka la dhex galay oo sunnadii la dhex galay oo culummadii warkooda dhex galay waxaa la ogaaday qur-aanku wuxuu ka warramay inay saddex un tahay ima inuu yahay tawxiid ka hadlaya afcaasha ilaahay ilahay baa wax dila ilahay baa wax nooleeya ilahay baa wax arsuqa sidan oo kale dabaylaha gaajada faqriga haninimada tawxiidka marka waxay u bixiyeen waa tawxiidu rabbinimada tilmaamayo alkhaaliq araazi qur-aanka ina rabbakum alladhi khalaqa leh lahu mulku samaawaati leh irtibaad buu ku samaynaya tawxiidka ka warramaya cibaadadana oo ilahay in cibaadada loola qastana uu noo imaan doonaaye aluluhiya oo cubuudiya ayaa loo bixiya tawxiidu afcaali lcibaad waa addoommadu waxa ay la imaanayaan wax alla wixii tawxiida oo ku tacalluqa ilaahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa qawiyun shadiid lmixaali maxaa la yidhahdaa allah tabaaraka watacaala waa raxiim waa raxmaan waa malik waa ya asmaada ilahay iyo sifaatka ku dhex jira kulu sifatin tatadamanu kulu ismin yatadamanu sifatan intaasoo dhanna waxay u bixiyeen magacyada ilaahay iyo tilmaamaha ilahay walilahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha marka waa fahamkaas weeye waxa uu laga fahmay wax weyn ma jiro wax dhibaato ah ma jiro tawxiidku waa qur'aan waxa weeyaan waa tawxiidka qur'aanka iyo sunnadu ay noo sheegeen laa mushaaxaata fi listilaax magacaa doonta aduu ku bixi afar ka dhiga daarto nin rag haddaad to intaad kitaabka xiddi dhex gasho alalahay tawxiidka kalaa soo helay dheh mid shanaad ka dhig haddaad doonayso muhiimadda weyn waa maxay musamayaadkana ma khuseeye waxa la aaminsan yahay marka saddex ilaah
nin xanuunsan oo fahamka luqada carabiga garanaynin unbaa u